assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalyaal mar walba joogtaa soo dhowaada. waxaan ka bilaabaynaa cashirkeenna haddii aan la idmo exaambleka labaad. waxaan ku guda jirnay qaabka loo saaro amaba loo soo saaro ayaan ku jirnay half-lifeka amaba mass remainingka sida loo soo saaro ayaan ku guda jirnay qaabka loo xisaabiyo half-lifekaasi calculationadeeda. example koowaad ayaan soo aragnay. waxaan aadaynaa midka labaad ayaan aadaynaa. iron 59 haas ee half-life waxay leedahay cimri bar 44 days. macnaha waxaa loo jeedaa 44 maalmood oo waqti markay u dhammaataba waxaa ku dhaca inta ay tahay cimrigeeda ayaa laba u qaybsamayo. waa macnaha 44 maalmood markay u buuxsantaba inta ay tahay ayaa laba u qaybsamay. saasaa loo jeeda warka saa u fahan. if haddii a nuclear laboratory laabka buuda receives markaas ay hesho leeyahay assemble walax of 16.4 miligram ay hesho how of iron haddii ay hesho 59 ah how many milligram of iron 59 ayaa are still active weli si firfircoonaan doonto after 220 maalmood kadib. 220 maalmood kadib meeqa ayaa si firfircoonaan doonto u leeyahay. qaabkaasoo noo weydiinaya 220 maalmood kadib meeqa ayaa sii firfircoonaan doonto oo iron 59 ah meeqa active sii ahaa doonto u leeyahay. waayahay aan fiirin midda aan xisaabino qaabka ay tahay. waxaana la weydiiyey marka iron 59 waxaa iron waa calaamadeeda 59 waxaa isotopka lagu calaamadeeyo waa markaa waayo 220 maalmood marka waxaa total timeka waa sooma. waayahay aan soo qaadana marka walaalayaal haye aan soo qaadana gifel maxaa haystaa waxaan haysanaa half-life waxaan haysanaa 44 maalmood ayaan haysanaa half-life. waxaan kaloo haystaa sidoo kale total time waxaan haystaa 220 maalmood. haye waxaan kaloo haystaa initial mass sida exampleka aad ka arkaysaanba waxaana la siiyey 16 miligram ana la siiyey sooma 16.4 miligram 16.4 miligram. yaa iga maqa marka fine soo hela lay dhahay. waxaa lay weydiiyey mt maxaa lagu helaa marka mt waxaa lagu helaa m0 oo loola jeeda initial mass oo ku jibaaran n waxay u taagan tahay total time oo loo qeybi half-life. xalin casharkaan sharaxnay sooma qeybta hore casharkeena hore aan ku sharaxnay total timeka meeqa marka aan haysanaa total timeka waxaan haysanaa 220 maalmood 220 maalmood oo loo qeybiyaa leenahay loo qeybiyey half-lifekeyga meeqaa 44 maalmood 4 days. haye kala jar marka nteyda waxay la mid isku qeybi marka intaas 220 loo qeybi days oo isla baxayaan 220 44 marka loo qeybi waxaa soo bixayso 5 soo bixayso. micnaheedu waxay ka dhigan tahay maadadan 5 jeer ayaa inta ay tahay min laba ay qaybsami doontaa. waa 5 jeer oo burbur ku dhici doonaa. burburkaas oo ah inta ay tahay ayaa laba mar walba u qaybsami doonta. waay halkaan soo fiir marka aan soo qaadano exampleka marka aan ka shaqeyno mt waxay la mid tahay m initial oo 16.4 miligram oo ku dhacsanaa leenahay 1/2 oo ku jibaaran 5. waxay la sii mid noqonaysaa mt waxay la sii mid noqonaysaa 16.4 miligram oo ku dhacsanaa leenahay hal haddii 5 lagu jibaaro waxba uma saameynayo laakiin laba haddii 5 lagu jibaaro saameynay ku helinaysaa waxay noqonaysaa 32 1/32. haye marka lasu qeybi marka intaas maxay noqonaysaa marka scientifica soo qaado hal igu qeybi 32 igu qeybi hal markaa u qeybino 32 waxay noqonaysaa eber mt waxaa ii soo bixayso eber 16.4 miligram oo ku dhacsanaa leenahay eber 3.125
هاي انت كدف اللح يتوان كدف مركا waxay noqonaysaa mt equal waxay la mid noqonaysaa 0.5 milligram intaas soo bixaysa 0.5 milligram ayaa soo bixaysa ma jeedid waa qaabka marka waxaa ka soo hari doonta 4220 maalmood kadib waxaa ka hari doonto ka firfircoonaa doonto still active meeqa ka firfircoonaa doonto ka 16 waxaa ka hari doono 220 maalmood waxaa ka soo hari doonto kadib waxaa ka soo hari doonto 0.5 milligram waaya inaad soo fahantaan la rabaa other way qaab kale aanu xisaabino marka qaabka kale aanu xisaabino other way qaab kale aanu xisaabino qaab kale marka aanu xisaabino meeshaan waxaan haysanaa markaan firin walaalayaal other way qaab kale markaan u xisaabino waxaan leenahay 16.0 milligram marka ay ahayd maadadan waxay ahayd 0 days ayay ahayd maadadan waaye 44 maalmood kadib oo ay qaadatay maadadan 4 days kadib 44 maalmood kadib maadadan oo ay taalay 44 maalmood kadib oo maadadan ay taalay waxaa ku dhacay waxaa ku sii dhaca macnaha inay sii badato waayo marka inay sii yaraato 16 half life ku dhacay inta aheedaa laba loo qaybi 16 sama 16 laba marka loo qaybi waxaa 8.0 milligram 8.0 milligram haye kan sii wad marka muxuu noqonaa marka kan waa sii ziyaada haye 44 maalmood oo kala 88 maalmood markay joogtayna way sii qaybsantay tanna intay aheedaa laba u sii qaybsantay waxay noqonaysaa 4.0 milligram sidoo kale 8 ku dar 44 132 days 132 maalmood marka ay ahayd 132 maalmood markay ahayd tanna way sii yaraatay oo laba u qaybsantay intay aheedaa laba u qaybsantay meeqa ahayd 4 moo 4 laba loo qaybiyay waa 2.0 milligram haye 132 marka ay sii way sii qaybsantay 132 waxaa lagu sii diray 44 maalmood oo kale waxay noqotay 176 maalmood 176 maalmood markay tahay tan way sii yaraatay oo waxay noqotay 1.0 milligram laba qayb meeqa hal waay haye tan waxay noqonaysaa 176 sii qayb meeqa ku sii dar meeqa waa 220 maalmood 220 maalmood kadibna ilaa 176 markuu dan intaas waa tan way sii yaraatay intay aheedaa laba loo qaybi hal waay hal laba qaybi waa 0.5 milligram 220 maalmood kadib waxaa hartay 0.5 milligram ayaa active still ka hartay weli oo ka firfircoon 220 maalmood markay u buuxsantay ayaa 16 waxaa ka haray mass remaining culayska waxaa ka haray 0.5 milligram ayaa ka hartay waaya marka fiir hadaawad macalno markaan soo saarnay n5 aan soo saarno 5 taas maxaa loo jeedaa 5 jeer ayaa min laba loo qaybi waa fiir hadda meeqa jeer waa 1 jeer 2 jeer 3 jeer 4 jeer 5 jeer 5 jeer ay qaybsanto waa macnaheedu 5 jeer ayaa la qaybiyay 5 jeer min laba loo qaybi inteed waa inaa saas ogaataa 5 jeer intay ahayd min laba loo qaybi oo ah 1 jeer 2 jeer 3 jeer 4 jeer kan kuma jiro 1 jeer 56 waa la qaybi hoosama 8 waa la qaybi 4 waa la qaybi 2 waa la qaybi 1 waa la qaybi 5 jeer la qaybi waa macnaha wana saas ogaataa marka qaabkaas ina ogaataa marka 5 jeer ayaa number of half life 5 jeer laba loo qaybi waay wana saas ogaataan waay yahay example kan bookon waa ka shaqeynaa oo hadar qaabkan ugu shaqay jadwalkan ahaan ka shaqay 0.5 milligram ayaa iron content 9 are still active weli firfircoonaa doonto after 220 maalmood kadib waa ka hay example ka saddexaad aan fiirina marka buugo qoraayo example saddexaad half life cimri bark of polonium 288 ayaa wuxuu yahay 3.4 minute ayuu yahay assemble namuunadan of polonium
contains waxay ka kooban tahay eber dhibic eber eber 558 gram of polonium 218 ay ka kooban tahay. What mass haddaba waa maxay culayska polonium 218 will remain baaqi noqon doona after 18.24 minute kadib. 18.24 minute waxaa waaye total timeka waa sama. polonium 218 waa maadadana. polonium 218 waxaa 218 sumadeeda waa inaa saas ogaataa waa ardayo waaya 218 marka laa waa sumadeeda weeyaan. haye maxaan sameynaynaa marka given maxaa haystaa ii sheega. waxaan haysanaa half life waxaan haysanaa 3.4 minute 3.4 minute ayaan haysanaa. sidoo kale waxaan kaloo haysanaa total timekeenan waxaan haysanaa 18.24 minute ayaan haysanaa. haye waxaa kaloo aan haysanaa initial mass waxaan haysanaa sidoo kale m0 waxaan haysanaa 0 eber dhibic eber 558 gram ayaan haysanaa. eber dhibic eber 558 gram ayaan haysanaa. waayahay intaasi kadib markaan haysano find soo hela laydhaha mt. waxaa lay weydiiyey aniga oo soo hel lay dhahay mt. soo ma jeedid mt soo hel ayaa lay dhahay. marka mtdi ayaa naga rabaa inaan raadino. mtdi how can we it sidaan ku heli karnaa waa mtdi. waayahay mt markaan raadinayno waxaan ku heli karnaa qaacidadii caadiga ahayd. mt waxaan ku heli karnaa m0 oo ku dhacsan 1/2 oo ku jibaaran n ma haysanaa waa maya. n waxaa waa total time oo loo qeybiya half life aa lagu heli jiray. haye total time meeqa haysanaa waaye waxaan haysanaa 18.24 minute ayaan haysanaa. intaas oo loo qeybiyaan leenahay 3.4 minute oo half lifeki ah. marka minute iyo minute waxay noqonayaan waa isla baxayaan. haye nteedu waxay la mid noqonaysaa marka nteedu waxay la mid noqonaysaa 6 marka intaas isu qeybiya n waxay la mid noqonaysaa 6 ay la mid noqonaysaa. boogan waa samayn doonaa oo ku arki doonaaye aan sii samayn marka mt waxay la mid tahay leenahay. mt waxay la mid tahay 18.24 minute. marka m0 meeqa haysanay eber dhibic eber 558 gram oo ku dhacsanaan leenahay. intaas oo ku dhacsan maxaa ku dhacsan intaas marka waxaa ku dhacsanaa leenahay 1/2 oo ku jibaaranaa leenahay 6. marka aan sii taxliilino 1 markii tiro walba lagu jibaaro isma bedelo. waxaan leenahay eber dhibic eber 558 gram oo ku dhacsanaa leenahay 1/64. 1/64 marka sii sameynaynaa mt waxaan leenahay equal waxay la mid taha leenahay eber dhibic eber 558 gram. 1/64 ii samey marka meeqa intaas igu soo haraysa marka 1/64 waxaa noo soo harayso hal loo qeyb 64 aan isku qeybino hal u qeyb 64 waxay noo soo bixaysa fiiri waa eber dhibic eber hal waxaa noo soo bixayso tiradaas aragtaan ayaa noo soo bixayso. adigana waa geli kartaa eber dhibic eber hal 55625. hay intaas ku dhuf marka intaas waxay u dhufataa eber dhibic eber 558 aan ku garaacoyaa ila soco. maxaa soo baxa 8.7 waxaa soo bax marka mtdeedu waxay la mid noqonaysaa marka 8.72 times 10 to the power negative times 10 to the power negative 5 gram ayaa ii soo baxda ujeediin. saas haday kuu soo baxay sax waaye. hadday scientific soo kalsaan kuusa saarin sax waaye oo ah eber dhibic eber 8.72 5 god waa mujeedada 1 god 2 god 3 god 4 god 5 god waay oo gram. saas haday kuu soo saartan sax waaye. aan idiin waaweyneyne
adii waaweyneeyo eber dhibic eber 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 8.2 garaam hadday kuusoo saartana jajabkaasna sax waayo waa standard notation saas day ku saarto oo 1 god waxaa lasoo wareejiye fiiri 1 god 2 god 3 god 4 god 5 god saasa lasoo wareejiye 5taas godaa marka lasoo wareejiyey marka almuhim waa qaabkaas waxaa soo bixayso mass remainingkayga waxaa soo bixayso 8.7 times 10 to the power negative 5 amaba eber dhibic eber 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 8.72 garaamna hadday kusoo baxdana waa sax buuggan hadda qaacidada ugu shaqeynaa fiiri doorkan mudada kalena waa mari kartaa oo ku fiiri karta maadaama labada example aan kaaga shaqeeyey buuggan uusan qaacidada uu maraayo aniga markaasaan wadadii kalena waa waajib ma ina mar walba wadada kale kugu tuso ku fiir waa kuu soo bixaysaa insha allah wadada kalena waa kana fiir markaan fiirino number of half life waa qaabkaas uma jeedid solution for you must determine the number of half life waa inaa go'aamisa that kaasoo have a basid gudbay number waxaa n inaad go'aamisid waa inaad soo heshid waa marka hore the number of half life inaad go'aamisid waxaa loo jeedaa n soo hel n maxaa lagu helaa waa kana number of half life waxaa lagu helaa time elapsed waa maxay timekii guud oo loo qeybi half life timekii ay shayga uu gaaray markuu burburayo meesha ugu dambaysa timeka uu gaaray ee loo qeybiya half lifeka shayga haye waa kaa isku qeybsa mujeedi 6 soo baxday 6 half life soo baxday oo ah 6 jeer ayay markaasi laba u qeybsantay waaye then markaan fiirin waa kaa to determine mass of a polonium 2.8 remaining markaasi ayaan go'aaminaynaa oo mass remaining ka go'aaminaynu leeyahay waana qaabka uu ka shaqeynaa buugga fiir ugu dambeyntii mass remaining waxaa lagu helaa starting mass or of the fraction remaining after n marka starting mass waxaa waaye initial mass oo ku dhacsan fraction remaining waxaa 1/2 qaacidadaas kuu sharxayo bas haye after half life markaa fiirida fraction waa maxay the radioactive nuclide that remain waa qaabka markaa fiirino 1/2 or waxaa kaloo dhihi karnaa 2 ku jibaaran n waa dhihi karnaa 2 ku jibaaran n waa dhihi karnaa waaya weer halkaasoo n ay u taagantahay number of half life waa ka mass polonium 2.8 polonium 8 mass remainingkeeda waa sidaana lagu helaa eber dhibic eber 558 gram oo ah initial mass oo ku dhaca 1/2 oo ku jibaaran 6 taasna waxaa waa n waayaan oo lasoo saaray waa qaabka eber dhibic eber 5 waa kaa kadibna oo isku sii dhuftay dhammaan waxaa usoo baxay 8.7 times 10 to the power negative 5 loo jeedaa power negative 5 gram waa kasama waa qaabka markaa firin waayo beejkaan ugu celiya marka waa taan idiin balaqaa markaa fahantaa inaan beejkaan usoo laaban doono beejkaan ugu celiya hal mar marka waa qaabka haye for examplekaan firino examplekaan xoro inuu wax kugu fahansiiya buugga for example tusaale iodine 131 half life cimri baray leeda oo 8 days haye markaa firino iodine 53 dhikayso ay burburtay idiyada produce aynu soo saartay non radioactive isotope waa maxay isotope markaas aan ka hafalahayn midda aan ka hafalahayn yaa waaye oo aan shucaaca bixinaynin waxaa weeyaan waa sinoon ay soo saartay ana beta particle burburkaas dhacayna wuxuu noqday ama uu ku shaqeynaa beta particle inuu yahay sidaan ku fahma macal sida lagu fahmo insha allahu cashiradeena dambe ayaan ku arki doonaa keliya beta particle inay tahay intaas ogaa hadda suppose u qaado hadda fiiri we have sample namuunadan that initial maxaa initial mass inuu ka kooban yahay 20 milligram inuu ka kooban yahay oo iodine 331 331 iodine oo saas in waxay ku qaad 8 days oo waxaa loo jeedaa 8 maalmoodba markay joogto laba u qaybsamaayo waayo hal mar marka aan inta ku tusaaleyno si aad u fahantaan iodine maadaama markaan fiirino waxaa waa initial masskeeda 20 milligram sama 20 milligram markay tahay 0 days waaye
waxaa la laakiin 10 maalmoodba way burburtaa 10kii maalmoodba labay u qaybsantaa 10 maalmoodba markay taalo 10 days ay qaadatay labay u qaybsantay meeqay noqonaysaa 10.4 miligram 10.4 miligram hay soo kale waxay kale qaadatay soo kale 10 days kale meeqa inta noqotay marka inta 8 days waa cafan 8 maalmood ay ku burburtaa Allah isma inta marka waxay noqonaysaa 8 kale 16 days 16 maalmood markay joogtay intan waxay noqotay 10 labo qayb meeqa waay waa 5.4 miligram waay ay soo kale intan meeqay noqotay 24 days 24 days ay noqotay hay 5 labo qayb meeqa waa 2.5 miligram 2.5 miligram meeqa mar oo marka burbur ku dhaca fiiri 1 2 3 tan ma aya saddex jeer marka qaabka marka tusaalaha qaabkaas ay u burburayso inuu kugu faansiyo rabaa wax kale oo adag ma jiraan meeshan wax kale oo adag ma jiraan waayahay mila faanti walaal meeshaas warkaas ku sharaxa fiiri bas wax kale oo adag ma jiraan ustaad suppose soo qaado we have in a sample that initial contain 20 miligram haye 8.4 days one half life hal mar ay qaybsantay hal mar one half life waa maxay hal mar oo kamid ah laba loo qaybiyay haye waa ka marka maxay noqotay 10 miligram of all maadada oo dhan iodine 131 oo dhan nuclei buudeeda oo dhan wilka way si burburi doontaa witaasoo leafs ka sii tagi doonto 10 miligram 10 miligram way ka sii tagi doontaa kadibna sidaas noqon doontaa leafs way ka sii tagi doontaa kadibna iodine 131 after 16 maalmood 16 maalmood markay gaartane laba jeer ay markaasi laba u qaybsami doonta 2 half life ku dhacayso 5.0 miligram kadibna remain ay asbaaqi ahanayso dhikay wayna burburi doontaa midaasi iidan way sii burburi doontaa witaasoo kadibna leafs ka sii tagi doonto 5.0 miligram ka sii tagi doonto ilaa ay ka gaarto 24 maalmood waxaana saddex jeer ay min laba u qaybsantay macnaha waxay gaartay marka saddex jeer min laba markay u qaybsantay culayskii 20 miligram waxaa ka soo hartay 2.5 miligram ayaa ka soo hartay oo leeyahay of the remaining markaas ka soo hartay oo leeyahay dhikay wayna sii burburi doontaa taasoo ka sii tagi doonta 2.5 miligram kadib nuclei buudeedu is still capable waxayna awood u lahaanaysaa produce radiation inay falaar soo saarto waa kana marka maadada ugu horeysa waa iodine waa maadadan kalarkan wada leeyahay iodine waa labadan kalaradan kala duwan maadada iskalan waa maada non radioactive waaye oo loo yaqaano xenon maadada kalarkan waxa waaye waa xenon meeqa jeer marka 1 half life 2 half life 3 half life wuxuu rabaa inaad ku baratid example-kan number of half life na ku baratid oo ka rabaa qaabka marka example-ku waa kana markaas si wadno 1 half life marka 10 miligram way sii socotay kadibna 2 half life ay sii noqotay kadibna 3 half life ilaa ay ka gaarto 3 half life markay noqotay waxaa ka soo hartay 2.5 miligram inaad wax badan ka fahanteen ayaan filayaa walaalayaal qaabka loo keenay iyo qaabka ay kala yihiin inaad faham badan ka qaadateen ayaan filayaa halka ay noo joogto walaalayaal waa maasantiin